أحبابي ما والبقى جوكتان وايدين سلامي وولاشينا دكتورة سجيا حنيدي رجينا يا عافمات قبش بش إي برواقو ما والبقى جوكتان دون إضافة هذا وكما تنتهي أديد تهي مركي كوغو هريسي أصوب بوخطو جنال كيغا فضلا سبسكرايب إيقو ديري قري لاكتان إيقو شرف كومنتيغاني وقتن كاغا ويحي معلومات أنا كومنتيغ نغسو قدبي ما شاء الله بإذن الله كريم هدو ألا أبود له إدمه ما أنتو حان كهضليا دقيارة دور وأنا خانا دقيارة واسا أجيدان دقيارهان ما شاء الله خفان أخوني مجرتو بدنا وان استعمالنا دقيارهان وحان قدرسنا إن شاحا كلام قدرسنا والو عرفيا قحبة وكلا إدي قحبة عبد قحبة دي قدرستا إدي شاحا مركز عبتنا شاحة يا قدرتها ما شاء الله بإذن الله كريم إلهي أسائديو أنت حنوس إله عافية أنت عاف ما تخبطنا إلا أسي سائديو وعن قد قلينا موضوعنا ما أنت حقوسيا لغيرها إيو حنونة لغدا بيو ويبذين حنونة لكن سوعا سوخاتي قار كمد أو أركا مهم جدا إني أطاهي لما أصحابتي وحيران iyo ummadda islaamka ah meel walba ay joogto sida u jeedno waa dhalinyarihii oo soo hore nagu sheegay oo lagu daaweeyo cudurro dhowr ah lagu daaweeyaa maasha allah maanta waxaan rabaa qodobo ka kooban inaan ka hadlo oo wanaagsan isticmaalka dhalinyaraha haddii aan gudu galo mawduuceena maanta saa u jeedaan dhalinyaraha waxaa loo isticmaalaa soo sidaan oo kale horta waa la isticmaali karaa intaan gudu gelin sharxaadaan dhameynaa inta guud galorta sidan u dhan waa la isticmaali karaa sidoo kale asagoo shiidan waa la isticmaali karaa haddii aad shiidi karin xitaa waxaa samayn kartaa waa tuman kartaa sida kashi imooyaha oo kale ayaad ku tumanaysaa markuu budo kuu noqdana kadibna waa isticmaalaysaa ama haddii shaax oo kale lagu karinin waxaa samayn kartaa markaad tumato fariisuul oo kale ama qaandayaara soo qaadanaysaa oo ku shubanaysaa haddii aan gudu galno marka qaar ka mid ah cudurrada lagu daaweeyo dhalinyaraha saa u wada jidno dhalinyaraha afshiirka oo kale muhiim jiddan dadka afka shiiraayo ama cirid dhiig oo kale maasha allah aad iyo aad uu wanaagsan yahay haddii badsadaan dhalinyarahan xitaa waxay samayn karaan dhalinyaraha markay shiidaan afka way ku shuban karaan ma aha oo kaliya inaa shaax ama qaxwo un lagu cabo afka waa lagu shuban karaa dhalinyaraha maasha allah sidoo kale qofka hadduu oo markaasi uu helayni shaax oo kale ama uu afka ku shuban karin wuxuu samayn karaa caanaha oo kale oo caanaha diiran markasta waxaa wanaagsan caano diiran inaa cabto caanaha diiran oo kale waa ku shuban kartaa sida shaaxiga oo kale aad ugu shubanaysaa kadibna waa walaaqanaysaa ama waa ku qasaysaa saa u taqaano sidoo kale afka waxay ka dishaa cirid dhiig oo kale way nadiifisaa cirid dhiig oo ka hortagtaa bacteria ilma aragtida aan afka soo gashana aad ay ugu wanaagsan tahay muhiim ay u tahay way baabiisa bacteriadan way ka dishaa ilkaha maasha allah waxay kaloo awood u leedahay ragga hamada yar ama haysa hamyarada ama markasta oo xaaladda sariirta xoogaa ku adagtaa oo kale maasha allah aad iyo aad ay ugu wanaagsan tahay very important u tahay inay isticmaalaan haddii ku isticmaal lahayn shaaxa ama ku isticmaal lahayn caanaha oo kale ama afka oo ku shuban lahaayeenba maasha allah aad ay ugu wanaagsan tahay laakiin waxaa wanaagsan in shaax ama caano diiran lagu cabo ay ku wanaagsan tahay maasha allah waxay kala wanaajisaa qurxinta dhismaha jirka masalka markaan ka hadlayno dhanka masalka aad ay ugu fiican tahay dhalinyarahan dhanka masalka marka laga hadlaayo masalka waa isku keenta way soo aruurisaa waxay ka dhigtaa kuwa toobin camal ah qof gym galay kale ka dhigtaa waa qofka markuu dhaho 2-3 maalin isticmaalay lama rabo adigu waa inaa wada dhowr usbuuc dhowr bilood waa inaa wada maasha allah wax badan ayaa ka dareemaysaa insha allah biidnillaahi kariim sidoo kale waxay u roon tahay infectionka ay u wanaagsan tahay ee ku dhaca xubinta taranka ragga ay ku wanaagsan tahay rag iyo dumarba saa wada ognahay rag iyo dumarba way u wanaagsan tahay inta wada joogno waxaan ka hadlaynaa haddii muuqaalka ku cusub tahayna waxaan ku hadlaynaa ama aan ka hadlaynaaba
waa dhagayaraha ilaa hadda aan ka hadlaynaa cudurrada lagu daaweeyo dhagayaraha waayo waxay ugu wanaagsan tahay infectionka bacteria ee maaragtida ah ee soo gasho ayay markaasi dishaa wayna ka baabi'isaa bacteria soo gasho waxyaabaha dhan oo ilma aragtida ah iyo infectionka way ka hortagtaa maasha Allah kaada hurka oo kale way ka hortagtaa dadka oo ka cawaadayo markay qabato hamiirado kale waxay kaloo ka hortagtaa biibaxa degdega ah sida wada jeedno waa dhagayarihii waxayna ka hortagtaa aad ugu wanaagsan tahay biibaxa degdega ah sida hore u sheegay dad badan sheegay culimo badanna way ka hadleen halkan kuma soo koobi kara laakiin biibaxa degdega aad ay ugu muhiimsan tahay haddii aad basato isticmaalka wax badan ayaa ka dareemaysaa insha Allah biidnillaahi kariim ilaahay qofkii caafimaad qaban la uu siyaadiyo ha isticmaalo qofka markas xanuunsanne ilaahay caafimaad ha ku siiyo isticmaalkiisana ha badiyo ayaan leeyahay sidoo kale waxay kordhisaa caafimaadka beerka waxayna ka soo saartaa beerka sunta ama waxyaabaha oo markaasi dilaha beerka ama bahdila bacteria oo kale viruska oo kale oo beerka ku dhaco sidoo kale xayrta fuusha beerka oo kale ayay ka tirtirtaa ee ka nadiifisaa waxyaabaha ilma aragtida dhan way ka nadiifisaa sidoo kale waxay kaloo hoos u dhigtaa awoodda faadka oo kale qofka cayilan very important ay u tahay way wanaagsan tahay wada jeedno waxaan ka hadlaynaa weli aan ku guda jirnaa dhagayaraheena aan ka hadlaynaa aad ay ugu wanaagsan tahay faadka qofka cayilan muddo gaaban gudaheeda hadduu isticmaalo ilaa 3 isbuuc oo kale maasha Allah 3 waqti hadduu isticmaalo maasha Allah iska dareemayaa jirkiisan maasha Allah wuu dhismayaa qurux ayuu u noqonayaa waxay kaloo u wanaagsan tahay hargabka way u wanaagsan tahay qofka qaba hargabka sidoo kale qofka qaba maxaa la dhihi jiray asmada ama neefta saa u taqaanid aad ay ugu fiican tahay inay isticmaalaan ama ay basadaan isticmaalka markaasi dhagayaraha maasha Allah waxay kaloo awood wanaagsan u leedahay ama wanaajisaa sokorta waxayna ka dhigtaa mid cabirkeeda aysan ka hoos barin ama ka kormadan ayay ka dhigtaa maasha Allah dadka sokorta qaba aad iyo aad ay ugu fiican tahay sidoo kale waxay wanaajisaa galgoosyo xanuunka oo kale dad badan oo galgoosyada xanuuno way baabi'isaa waxay ka dhigtaa mid aad u fiican tayo leh ayaa ka dhigtaa dhowrkii qodob aan ugu talagalnay inaan uga hadalno xabasoodada maasha Allah waan soo dhameynay biidnillaahi kariim way jiraan qodobo badan oo wanaagsan in xabasoodada wanaagsan way jiraan cudurro badan oo xabasoodada wanaagsan tahay laakiin anaga maanta waxaan ka soo qaadanay dhowr qodob maasha Allah waxaan rajeynayaa dhowrka qodob inuu idin anfaco fadlan jooji haddaad isticmaasho muqaadaraadka sida sigaarka tubaakada shiishada oo kale waxay halis ku tahay caafimaadkaaga ayay halis ku tahay isticmaal cunto isku dheelitiran oo nafaqo leh sidoo kale waa inaad isticmaashaa si uu jirkaaga caafimaadkiisa ama caafimaadkaaga kor ugu qaadmo fitamiinka magnesiumka vitamin B12 vitamin D-ga vitamin K-ga potassiumka iyo fitamiino kale oo wanaagsan jirkaaga fadlan halkan ayuu ku egyahay mawduuceena waad ku maasan tahay daawashada iyo sida wacan aad noo adeecday biidnillaahi kariim insha Allah wixii markaasi su'aalo qabtidna commentiga inoogu reeb